Assalaamu calaykum. Maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa 6 shay ay sameeyaan guulaystayaashu. Ku soo dhawow isagoo faahfaahsan. Number 1. Dadka guulaysta had iyo jeer waxay qayb ka yihiin xalka kuwa guuldareystay siba kuwa badanaa dhibta kiciyo. Number 2. Dadka guulaysta had iyo jeer dhib kasta waxay ka dhex arkaan xal, halka kuwa guuldareysto badanaa xal kasta ay ka dhex arkaan dhib. Dadka guusha saaxiibka waxa ay yiraahdaan way adkaan kartaa laakiin waa suurtagal, halka dadka dhigooda ee guuldareystayaasha ay yiraahdaan waa suurtagal laakiin way adag tahay. Dadka guusha saaxiibka waxa ay leeyihiin qorshe iyo ballan qaad, kadibna ficil iyo waxqabad, halka dadka guuldareystayaasha badanaa ay leeyihiin iyaguna qorshe iyo ballanqaad laakiin qorshahaas iyo ballanqaadkaas midnaba aysan ka dhabayn. Ogow, ballanka iyo qorshaha inta ay ku jiraan ayay ku jirtaa guushuna. Number 5. Guulaystayaashu waxa ay yiraahdaan waa inaan waxaan ku dhaqaaqnaa oo waxaas aan qabanaa, halka guuldareystayaashu ay yiraahdaan waa inaan waxaas qabanaa kadibna ay dib u dhigtaan, taas oo guulaystayaashuna ay si toos ah ugu dhaqaaqaan waxa ay markaas doonayaan. Number 6. Dadka guulaysta waxay arkaan miraha guusha waxayna hilmaamaan rafaadka loo marayo guusha, halka dadka dhigooda ee guuldareystayaashu ay arkaan oo keliya rafaadka, xanuunka hawsha, balse aynan arkin miraha guusha. Eebbaha inaga dhigo kuwii if iyo aakhiraba guulaysto. Waad ku mahadsantahay la socodka iyo jaanqaadkaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Maxamed Xuseen kusoo biir, waxay noo tahay dhiirigelin iyo kusoo biiritaan.